السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka kan oo ku saabsan iskaashiga Soomaaliya iyo Turkiga. gaar ahaan barnaamijka kan aan dul istaagayo iskaashiga ciidan iyo horseed oo ay kala saxeexdeen maalmihii tegay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Turkiga. iskaashigaas oo ah iskaashi ciidan oo military oo run ahaantii ku yimi xilligiisii habboonaa, xilli loo baahnaa, la dhaqangeliyey oo la isku dayayo in la dardar geliyo, iyadoo uu xilligaasu ku aadan yahay iyadoo ina soo food saartay colaad iyo weerar xadgudub ah oo dhan inaga ah oo ka soo jeeda dowladda Itoobiya. taagta Soomaaliyeedna ay maanta tahay run ahaantii burburkii dowladnimadii qaran ee Soomaaliyeed mid aan saas u sii jirin oo aan buurnayn. arrinkaasuna uu farayo ina kalifayo inaan helno xulufo siyaasadeed oo ciidan. arrinkaasuna gunaanadkii uu inoo sahlayo inaan ku furdaamino howlaha difaaca iyo horseedka dalkeenna iyo iska caabinta xadgudubka iyo duulaanka dowladda Itoobiya gaar ahaan. iskaashigaas isaga oo ah mid muuqaallo kala duwan leh, muuqaal tababar ciidamo oo ahaa mid hore u jiray, iyo muuqaal in Soomaaliya wixii ka dambeeyey ka qaadistii laga qaaday cunaqabateynta hubka ee hubka hesho dalal kaleba iyo gaar ahaan dalka Turkiga. sidoo kalena lagu heli karo iskaashigaas isdhaafsi cudud ciidan oo dalka Turkigu uu ku caawin karo, ku kaalmeyn karo maanta dowladda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ilaalinta xeebaheena. dowladda Turkiga marka loo fiirsado iskaashiga inaga dhaxeeya ee cusub, iyadoo iskaashigu horeba u jiray miisaanku yeeshaba ha yeeshee, balse iskaashiga cusub waa mid bilaabmay sanadkii 2011 markii ay dhacday gaajada iyo abaarta baahsan ee Soomaaliya ku habsatay xilligaas isaga ah oo ku aadanaa xilligii xukunkii madaxweyne Sheekh Shariif Axmed. iyadoo dowlad ahaan iyo shacab ahaanba Turkigu Soomaaliya ugu soo gurmadeen, halkaana hay-adda la yiraahdo TIKA oo ah hay-ad qaran oo hoos timaada golaha wasiirada ee xukuumadda Turkiga, ay baaho qaran iyo yabooh iyo arrin noocaas oo kala ah u gashay bulshada Soomaaliyeed, taasoo laga ururiyey lacag badan shacabka iyo shaqaalaha Turkiga. lacagtaasoo gaadhay $500 milyan loogu talagalay howlaha gargaarka ee bani-aadamnimo ee Soomaaliya, iyadoo lagu shubay akoonka hay-addaas iyada ee tilmaaman ee ku magacaaban TIKA. wixii ka dambeeyey iskaashigaas waa sii socday, hadduu noqdo mid dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid militariba. maantana loo baahan yahay in halkii laga sii horumariyo taagan yahay oo la sii kobciyo. طبعا دولة تركيا
waa lama huraan waana hubaal inay dana dhaqaale iyo siyaasadeed iyo istiraatiijiba ee Soomaaliya ka leedahay oo arrinkaas iskaashiguna ugu wacan yahay ama keenayo balse danahaas iyaga ah runtii marka loo fiirsado nagaga aadan dowladda Turkiga waxaa la oran karaa inay yihiin dano macnihii lama huraan oo la taaban karo oo sharciyeysan oo legacy ku fadhiya oo aan ahayn iskaashi u janjeera labada dhinac ka mid ah balse uu yahay mid dheelitiran loona baahan yahay haddaynu Soomaali nahay gaar ahaan xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya inay arrinkaas isaga ah kaalintiisa siiso oo dardargeliso siduu u noqdo gunaanadkii mid midho dhal ah sooyaalkii Soomaalida iyo Turkiga ka horreeyay marka loo fiirsado oo laga tallaabsado sooyaalka aynu maanta taabanayno ee ah marxaladda Jamhuuriyadda Turkiga ah wixii ka horreeyay Jamhuuriyadda Turkiga ah wuxuu ahaa xidhiidhkii noo dhexeeyay xidhiidh run ahaantii guumaysi iyadoo boqortooyadii Cusmaaniyiinta ah oo khilaafa islaamiya lagu sheego balse nuxurkeedu ahaa dowlad imbeer ah oo dhul ballaarsi ku socotay dhulyow badan oo Asia iyo Afrikana xukuntay iska baddaa dadyowga qalaad ee ku kala nool qaaradahaas Asia iyo Afrika ee gumaysatay balse xitaa bulshada Turkiga ah gudaha ah xilligaas isaga ah waxaa la oran karaa inay dhibaato badan kala kulmeen boqortooyada ay xukunka xukumi jiray waxa muuqda marka la akhristo sooyaalkeena Turkigeena dhex maray waayahaas hore gaar ahaan xilligii Axmed Gurey inuuna dhex yaalay iskaashi oo Turkigu Soomaalida ku caawiyeen cudud ciidan iyo hubayn balse hogaamiye iyo halgamaa Axmed Gurey markii dambe uu arrinkaas isaga ah soo afjaray iyadoo uu ka raacdeeyey ama ka caydhiyey ciidda Soomaaliyeed 5,000 oo ciidan oo Turkish ama boqortooyadii Cusmaaniyiinta hoos iman jiray arrinkaasuna ugu wacnaa isagoo ilaashanayay madax bannaanidiisa iyo madax bannaanidii saldanadii cadal saansaantii iyo muuqaalkii gumaysi iyo Turkiin awgeed uu dareemay uu taabtay uu arrinkaas isaga ugu wacnaa inuu ka raacdayo oo ka caydhiyo ariga Soomaaliyeed oo ay dib ugu noqdaan dalka Yemen sidoo kale waxaa iyaduna ah dhacda sooyaaleed oo la taaban karo oo baal mugdiya ka gashay xidhiidhka labada dal in hogaamiyihii ciidan ee loo oran jiray Cabdura'uuf Baasha uu qarnigii 19aad markii Turkigu ay Soomaaliya ku soo ballaarsadeen uu magaalada Harar ku shiriyay odayaal Soomaaliyeed iyo waxgarad Soomaaliyeed iyo gurtiba halkaasna ku xasuuqay oo ku dilay tiro gaadhaysa oo odayaala 40 oday arrimahaas waa arrimo sooyaaleed oo lama huraan ah inaynu ogaano taariikhdeena balse iskaashiga iyo sooyaalka siyaasadeed ee maanta dhex taal
dhexyaal soomaalida iyo turkiga waa midkaas boqolkiiba boqol ka duwan oo salka ku haya saan tilmaamay arrimo iskaashi siyaasadeed iyo dhaqaale iyo ciidan iyo arrimo bulshada loona baahan yahay iskaashigaas isaga ah in la horumariyo oo xaqiisa la siiyo soomaaliduna ay ka faa'iido oo ka midho dhaliso marxaladda tan maanta lagu jiro ee baahida badan iskaashigaas isaga ah si uu kaalin uga qaato difaaca iyo horseedka soomaaliya daawda dhegayste waa anigoo ah khaalid xasan yuusuf intaan ku kulmi doonno barnaamij kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu